qadiyadda maanta taagan qadiyad oo makaanika ah oo bakeerigan inta ka qaada inta dhig maaha waa qadiyad process ama muxuu ahaay wadiiqo inay marta laga rabo kalsooni u baahan wada ogol u baahan maxaan ku yiraahdaa isfaham iyo muxuu ahaay is-aaminaad u baahan waay marka arintaasi waxay ku habooneed labadii talo soo jeedin mid kamid ah jirta hadii wax la soo garta xataa in la qaabeeyo oo shir inta la isugu yimaado shirkaas maxaan ku yiraahdaa lagu waxeeyo oo lagu soo gunaanado oo la yiraahdo intaana saasa u garanay halkaan waa noo dhimantahay ama waa dhameystirna la yiraahdo nasiib darro ma ayan dhicin annagoo wali sidii uga dhur sugayna madaxdii maanta waxaad aragtay ayay sii daayeen waa yimaadeen warkaad aragtay oo qaarkiis aan u qaadan karno annaga qadaf inuu yahay waa laga soconaa looma baahna waa la yeelaa iyo wax la mid iyo walaalayaal dadka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan u sheegno hadaan midowga murashaxiinta dalkan hadda ayuu kala taagan yahay Soomaaliland naga maqan gooniya isu taagnay leh wada xaajoodkeeda muddo lagu soo jiro la raadinayo qaar kale maanta haddana in ay sabab loo abuuro ayaguna waa gooniyan isu taagnay biri inay yiraahdaan sababi karto dalkan suurtagal ma aha doorasho oo deegaan hebel iyo maamul hebel ka maqan la leeyahay in la qabto suurtagal ma aha midnimada dalkaanay dhaawace wada jirka ummaday dhaawace dawladnimadeenay dhaawace marka arintaas waa qodobka kale waxa soo haray walaalaheena muxuu ahay ra'iisul wasaaraheena oo u weyn yahay iyo madaxda dawlad goboleedyada ee maanta la taagna sida ay u dhaqmeen sax ma aha waxaan qabnaa kuwaas waa maqan yihiin waa laga tashanaa waa laga soconaa la leeyahay waan leenahay war midnimadii wax u dhimaysaa ayaan saa la yeelin kuwa kale ee saaxiibada ee maanta taagnaayna ra'yiga maanta ay meesha ka sheegeen kuma matalaan dadkii shala doortay ra'yigaas ra'yi deegaanadooda iyo dadkooda ay qabaan ma aha mana ku habboona walaxan ay dadka ku matalaan inay sheegaan ma habboona in ay madaxweynaha maanta fadhiyo ayaan kursiga u soo boobaynaa u soo dhacaynaa dadka annaga soo gacan maroojinayno in la yiraahdo sax ma aha madaxweynaha jamhuuriyaddana waxaan leenahay qaarna waa laga maarmaa inaad tiraadid qaarka kalena ciidamaan u daabulaa oo geysanayo maxaan ku yiraahdaa xoog dadka iigu soo afduubayo nimanka odayaasha maanta la taagnaa saaxiibadaana ay raali ku yihiin dadka Soomaaliyeed ee deegaanada ay dawlad goboleedyada maanta meesha jooga ee matalaan raali kama arintaas lamana boobi karo ciidana laguma boobi karo haddii shalay doorashooyin qaarkood xoog iyo ciidan lagu boobay tani intii hore waa ka weyn tahay ha loo gogol dhigo ha loo tartiibiyo ha loo dhimriyaan leenahay dalka in la isku haayo ayuu u baahan yahay madaxweynaha dalkaanoo la ishaysto isla jiro israbo isla fadhiya meel go'aano wada jir gaaro ayaa shala lagu wareejiyay dadkii dalkiina inuu isku haayo oo sidaas ku sii xukumo haduu joogayo oo si sharci ku joogayo haddii aanu joogaynina dalkiiyo ishaysto iyo deegaanadiyo ishaysto mid ah oo wareejiyo ayaa looga fadhiyaa madaxweynaha gadaal inuu inta fariisto dadka Soomaaliyeed inuu la hadlo oo diido dadka maxaan ku raadayay saamilayda ee siyaasadda doorka kule inuu la hadlo oo diido ee dad kale sidii ruuxaantii uu ka soo dhaxadla madaxweynaha xal uma keenaysa waxaan leenahay madaxweynuhu ha ku noqdo taladaas dib ha u noqdo oday Soomaaliyeed aan noqon ah hadda ka hor dad ka ballan qaaday wuxuu ballan qaaday ha fuliyo oday Soomaaliyeed ha noqdo ha soo dego dadka ha la fariisto askarta iyo hubka maalin walba la sii daabulayo ee shalay iyo daraad iyo usbuucida hore ee maxaa gadal lagu daabulayay ee shalay iyo maanta maxaan ku yiraahdaa hiiraan lagu sii daabulayo ee daraad intii ka horeysay maxaan ku yiraahdaa dhuusa mareeb lagu sii daabulayay maxaa loo daabulayaa loo geynayaa doorashada in lagu soo dhaco waay maamulada meesha joogaay aamuslaantooda waxaan u qaadanaynaa hana loo keeno askar waxa aan ku dhacnay inay ayaguna dhaheen madaxweynuhuna uu sidaas rabo ma suurowdo ma dhacayso suurtagal sina kuma aha marka arintaas waa qatar hadda ka horna waa sheegnay annaga qadiyada aan madaxweynaha uga ra'yi duwanahay doorasho kaliya ma aha dalka inuu qatar ku jiro waay midnimadiisa inay qatar ku jirto waay in maxaan ku yiraahdaa wadadaan ay ku dhamaato meel aan fiicnayn waay waxaan leenahay ha la soo noqdo xalku markii intee jira xalku wuxuu jiraa in la wada fariisto oo la wada hadlo oo qadiyada taagan waa masiiri
وأمدان مستقبل كيدي ودل كان مدنمديسي واسكو هاينتي أمده كلسوني أبوركي ديبوشيسينتي مدد لسور لسايو أو لسي حوجيو واي إن بوغيه لدنقيو أو ديب لو داوعي معه dad kan meel uu soo gaaray lama dib loo ma celi karo lama waxayn karo warka maxaan ku soo celcelinta ah sagaashanka loo noqonaa la yiri kan iyo waa cadeyn haddana waa sagaashanka cid u noqonaysa male cid u noqonaysa cid khaldan maanta gacanta laga qabanaa naga joog leeyahay moogiye dalkaani hoog iyo halaa kale uma noqonay ummadana waa ka timid meeshaas aqliga ummadda iyo dareenka ummadana in loo gafa ma aha oo la yiraahdo wax ma garataan la yiraahdo ma aha marka waxaan leenahay walaalayaal midowga murashaxiinta taladiisu waxay tahay xalka loo noqdo gogol la isugu yimaado dadka ay khusayso oo talada loo dhamu annagu aan kamidnahay ha yimaadaan caalamkana garab taagan maalin walbana kaalmaynayo ha soo fariista meesha ha joogo meel loo wada dhan yahay fagaara ah wax la qariya ma aha wax weyn waaye meel la joogo fagaara arintaas ha looga wada hadlo ha looga heshiyo hore ha loo socdo waxaan rabaa qadiyada kale oo raba inaan ka hadalno oo aan maanta arintan meesha uga hadlo waxay tahay waxa bariyan suuqa la geliyay nimankan murashaxiinta ma rabaan doorasho 8 February in la gaara la rabaa kana la rabaa war anaga sidaynaba tala xumo iyo hoog kama batalinabo dadka ka tali lahayna maahin dalkaanon meel u jihaysan 8 February in la gaaro عدة مسؤولية كي ما أنت هاي صارت مسؤول كأنك مسؤول كماهين شلي هالشيء الله قال دوس مريب 1 دوس مريب 2 3 دوس مريب شلي وحال الله هاي والله قصعنا هلا الله هاي أيضا الدولة قبل ذي قاركود مقيين وحقيقة نقطة إن الله قصع كرن مقدشة اللي يسوي بيش سبتمبر ولا شيء هالشيء كي واي ما أنت دقن قلين تسوح على سكوايستو نصيب در ضدك الصومالي إن فهمان واي هالشيء كي إنه دقن قالوا واحد ديدا والدولة فدرال كواي iyo intii muxuu ahay inay wax u hoosaasisan rabto iyaga waaye waxa dalka ciidamada ku daabulaya doorashada in la boobo in la xoogo in la dhaco oo murashaxiinta mid kamida oo la yiraahdo madaxweyne Maxamuud Cabdullaahi Farmaajo in wax loo dhaco wax loo boobo rabaan war ummadan masiirkeeda lama dhici karo herti lama ordi karo kuwa rasaas ku haminayana ka joogan leenahay madaxweynahana ka joogan leenahay dalka 8 February annagu taariikh qoran oo dastuuri oo meel taalo waay waa laga guuriyay muhiim ah ma dhaheeno laakiin xalan rabnaa wax socdaan rabnaa doorashadii aan rabnaa oo si sax ah ku socotaan rabnaa haddii doorashadii si sax ah ku socoto 8 February ay nala dhaafto waaba socotaa waaba ku dhex jirnaa maanaga ka dhex qayli karno laakiin doorashadii la bilaabi ma 8 February ay rabaana dadka lagu eedayna wax kale uma aragna waqtiga in la si durugsado in la rabaan u aragnaa haday dhab ka tahay 8 February in la gaarin ama 8 February iyo agagaarkeeda wax socda inay ku soo dhamaadaan haday dhab ka tahay wax sax ah la bilaabi lahay dawladda madaxweynaha iyo wiilasha u shaqeeya waxaan leenahay 8 February hadii balaaya dhacaysa adika keeno haysaan dalkan 8 February doorasho inay dhacday ahayd haddaanay dhacaynina walba inay soo muuqatay wadada ku soo jirtay inay dhacaysay ahayd 27 December baarlamaanka waqtigiisa dhamaaday madaxweynaha waqtigiisina waa 8 February asalka waxa aan waa baarlamaanka haddaan baarlamaan jirin ama 8 February madaxweyne la doorana ama 8 June iyo July iyo December 2021 xataa ama madaxweyne la doorana haddaanu baarlamaan jirin baarlamaanka iyo doorashadiisa waaye mas'aladu waxay ka taagan tahay waxa in la dhacal la rabo ciidamada kor iyo bari loogu daabulayo diyaaradaha loogu qaadayo waa arintaas dadka Soomaaliyeed inay fahmaan aan rabnaa bis mowqifkeena wuxuu yahay war walaalayaal wax la dhici karo wax la boobi karo ma jiraan dadkuna raali kama ahe aan intaan ka wada tashano wax Soomaali isku raacsan tahay keena oo annaga hadaan rabina awal baa naga tagi jirteen idinku isku soo raaca laakiin adikana idin rabno murashaxiintii iyo mas'uuliyiintii hadaatihiin annaga dhaxdaynana isma rabno koox yar oo iswadato maxaan ku raa suuq madow aha meelaha wax ka bixiso masiirka ummadda Soomaaliyeed suuq madow kuma socon karo afarnimo isjecel ma wadi karaan afar maxaan ku raadaa hoos muxuu ahay balaay uga heshiis ma wadi karaan alla dhiga xaajada madaxweynaha iyo prime ministerka iyo guddoonka baarlamaanka iyo cid iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedka waxaan leenahay
هنقولنا نكيري يلبكي ماذا حنت صارتي يلبك هلا غيبيو ورنولك صادق والله غيبلا يلبك اللي كلا ما هلا غيبيو ماذا حنو كسيست يلبكي هنقولنا لنا حاجة نولك صادق والله جوضة الشنا وانا لجوه الشينا وانا لجونا بذوبة وانا لسكو جعلانا لسكو نعماي وحقانون وقبو شرع وقبو ضدك الربان لسكو منعو آدي آدا وما سنتين مركلة وكعلينا وحن لنا هاي دور الشذا هي مستقبلك هي مسيرك ومضى هي الدلك من مديس وايا وحن كهاد ليناه هبلا حق الله حلا حذائيه هبلا لو جمهور هبلا ستة لقى صوت دقائق معهن دور الشذا عن الدلك قطر يجري كرتاه من مديس قطر يجري كرتاه دولة نمدين يجوب نمدين سوفرين تيجي قطر يجري كرتاه وحسهلا معهن يعني لا ضيال سند ومضى الصوماليين دقيقودي إندهود حتى جناده هنا فوج جناده أنا لنا هذه دولة وحي ما أنت أي كل واقضي إن يسيو وضع أي قان سطو أي قات كيسطو وحفي عن ما وأنا وح أن كدجين وأن ديرين أنه مركز طلابة كان قاعد دورنا أنه طلابة عن قاعد دورنا وحن رجينا إن الله باهنن وأنا إيمانن أو ميرك دولة أنتو صار نقضي أي دور شديد دول كصار دكتور رجال